الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii atuxfatu saniya waxaana ku dhex jirnay baabu macrifati calaamaati alicraab gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay calaamaatu nasbi kordhiga calaamadaha uu leeyahay 5 calaamo uu leeyahay fadxadiian ka soo baxnay iyo kasradii calaamada saddexaad oo ya-da ah ayaan ku dhex jirnay markaasuu sheekhu wuxuu yidhi niyaabatul ya-da naayib noqoshadeeda can ilfadxati fadxada ay ka naayib noqoto haadihi maxaluhaa qaala maxamed ibnu maxamed ibnu daawuud asinhaaji wa ama alyaa-u yaadu fatakunu yaadu calaamatan calaamay ahaataa linasbi kordhigay calaamo u ahaataa fi tahniyati tahniyada iyo waljamci jamacayna calaamo ugu ahaataa wa aquulu waxaan leeyahay yihi maxamed muxyidiin cabdulxamiid qad carafta waad soo garatay almuhana muhane maxaa la yidhaha xadkiisa waad soo garatay fii maa baabkii aad ku soo garatay madaa tegey oo rafcada calaamadaheeda markii laga hadlayay halkaasa looga soo hadlay wakadalika sidoo kale qad carafta waad soo gartay jamca almudakari saalim waad soo garatay jamca almudakari saalim maxaa la yidhaha isna waad soo fahantay wal-aana haddeer nukhbiruka waxaan kaaga waramaynaa annahu sha'niye yumkinuka waxaa suurtagal ku ah an tacrifa inaad garato nasbal waaxidi mid la kordhigidiis waaxidkoo minhumaa jamc mudakaru saalim iyo muhano ka mid ah biwujuudilyaa ya-da helideeda waxa weeyaan aad ku garato biwujuudilyaa ya-da helideeda inaad ku garato fii aakhirihi laga helo haddii jamcu mudakaru saalim iyo muhano aakhirkiisa aad ya ku aragto waxaad ku garanaydaa jamacaasu inuu kor dhigan yahay muhanahaasu inuu kor dhigan yahay taasaad ku garan walfarqu marka labada yo-ood maxaa lagu kala fahmi haddii la yidhi muhanana haddii aakhirkiisa ya lagu arko waxay calaamad u tahay muhanahaasu inuu kor dhigan yahay jamc mudakaru saalim haddii aakhirkiisa ya lagu arkana waxay calaamad u tahay jamcaas inuu kor dhigan yahay labada yo-ood maxaa lagu kala garan oo muhanaha iyo jamca lagu kala garan walfarqu farqiga u dhexeeya baynahumaa muhanaha iyo jamca mudakaru saalim ana alyaa yaada filmuhana muhane dhexdiisa xaalay ahaatay yakuunu wuxuu ahaanaa maa xarafkay qablahaa ya-da ka horeeya maftuuxan mid la kordhigay ya-da muhanaha ku jirta xarafka ka horeeya waa la kordhigaa wamaa xarafka bacdaha ya-da muhanaha ka dambeeyana maksuuran mid la hoos dhigayuu ahaana saasaad ku garane muhanaha ya-deeda xarafka ka horeeyana waa kor dhigan yahay xarafka ka dambeeyana waa hoos dhigan yahay walyaa-u ya-da laakiin markaas wuxuu ku yidhi walyaa-a analyaa-da horay ku cadfan tahay walyaa-a ya-da fii jamci lmudakari saalim fii jamci lmudakari jamci mudakar saalim ula jeedaa fii jamci lmudakari jamca mudakarka dhexdiisa xaalay ahaatay yakuunu wuxuu noqonaa maa xarafka qablaha ka horeeya maksuuran mid la hoos dhigayuu noqona xarafka jamca mudakaru saalim ya-da ku jirta xarafka ka horeeya maksuuruu noqona waa khilaafkii muhanaha wamaa xarafka bacdahaa ya-da jamcu mudakaru saalim ka dambeeyaana maftuuxan mid la kordhigayuu noqona saasay waa bilcagsi waa isweydaarsan yihiin oo midna waxay noqon fiiri waxay noqonaydaa mid waxay noqon zaydeyni muhanaha waa saas zaydeyni hadda deyni ya-da daala ka horeeya waa kor dhigan yahay nuuna ka dambeeya waa hoos dhigan yahay laakiin jamcu mudakaru saalim maxaad leedahay zaydina haye ya-da deelka ka horeeya waad hoos dhigin jamcu mudakaru saalim nuunta ka dambeeyana waad kor dhigin iskuma eka marka muhane markaad aragto zaydeyni muslimeyni fiiri muslimeyni waa muhanaad leeda haddaad aragto muslimiina jamcu mudakaru saalim weyaad leeda muslimiina mu'miniina qaanitiina aad leeda ma garatay marka wuxuu ku yidhi fa mithaalulmuhana muhanaha mithaalkiisii nadartu waan fiiriyey cusfuurayni 2 shimbiraan fiiriyey aad leedahay labadaas shimbiroo fowqa shajarati geedda korkeeda taagan oo geedda korkeeda ku sugan nadartu waxaan fiiriyey cusfuurayni 2 shimbir labada shimbiroo fowqa shajarati geedda korkeedas ku sugan hadda maxalshaahidka la rabo fiiri
nadara waa ficil maadi ta'duna waa faacil nadartu ficlun waa faacilun dhe xagga dhig cusfuurayni waa muhane cusfuurun hal shimbir waxaad ku dartaa ya iyo nuun cusfuurayni waa muhane waana nasbisan yahy calaamadda inuu nasbisan yahy lagu garana waa ya-da ya-daanu inay muhano tahay osan jamc mudakur saalim ahayn calaamadda lagu garanaana waa maxay ya-da xarafka ka horeeya waa kor dhigan yahay waa ra'da xarafka ka dambeeyana waa hoos dhigan yahay waa nuunta inuu muhano yahay saasaad ku garan inuu kor dhigan yahayna ya-daad ku garan sow ma jeedi fawqa shajarati geeda korkeeda labada shimbir oo ku sugan wa naxwu ishtaraa abi aabbahay wuxuu suuqa ka soo gaday kitaabayni laba kitaab kitaabayni kitaabun uu ahaa markaasaa waxa weeyaan ya iyo nuun gadaal looga daray kitaabayni waa kor dhigan yihiin ishtaraa waa ficil maadi faacilkiina waa abi waaye kitaabayni waa mafcuul bi waa kor dhigan yihin inay kor dhigan yihin ya-daasa u daliila ya-du inay muhano tahayna oo meeshay ku jirtaa muhano tahayna waxaa kutusaa xarafka ya-da ka horreeya waa kor dhigan yihin kitaabayni ba'da ka horreyda waa kor dhiganta xarafka ka dambeena waa nuunka waa hoos dhigan yihin inay muhano tahay saasaad ku garan ishtaraa abi aabbahay wuxuu soo gaday kitaabayni laba kitaab li anuu ii soo gaday iyo wali akhi walaalkay labadeenaasu noo soo gaday haddaba laba muhane oo kor dhigan labaduba ay kor dhigan yihiin aan soo ogaanay waa cusfuurayni iyo kitaabayni wuxuu ku yidhi fa kullun mid kasta oo min cusfuurayni iyo wa kitaabayni ah mansuubun waa la kordhigay kulligaas maxaa loo kordhigay likownihi mid kasta inuu yahay darteeda loo kordhigay mafcuulan bihi labada waa mafcuulu bihi oo cusfuuraynina waxay mafcuulu bihi u tahay nadartu ficlun wa faacilun nadaradaasaa kordhigayo mafcuulu bihi ka dhigtay kitaabaynina waxay mafcuulu bihi u tahay ishtaraa ficilkaasaa kordhigay marka wuxuu ku yidhi fa kullun mid kasta oo min cusfuurayni iyo wa kitaabayni ah mansuubun waa la kordhigay likownihi inuu ahaaday darteeda loo kordhigay mafcuulu bihi wa calaamatu nasbihi inuu kordhigan yahay calaamada lagu garanaana alya-u waa ya-da muhanahaas oo ah cusfuurayni inay kordhiganta ya-daasa lagu garan kitaabayni ya-daasa lagu garan ya-daas ayaa calaamad u ah ya-da almaftuuxu la kordhigay inay muhano tahayna waxaa kutusaa ya-da almaftuuxu waxaa la kordhigay maa xarafka qablaha ka horeeya almaksuuru waxaa la hoos dhigay maa xarafka bacdaha ka dambeeya oo cusfuurayni kitaabayni aa la yidhi maxaa loo kordhigay xarafka ya-da ka horeeya xarafka ka dambeeyana loo hoos dhigay liannahu isimku muhanan weeye muhanahana waxaa lagu yaqaan ya-diisa xarafka ka horeeyana waa la kordhigaa xarafka ka dambeeya nuuntana waa la hoos dhigaa saasaa muhano lagu yaqaan waa nuunu nuuntu halkay ka timi marka calaamadan waa garanay fiidi cusfuurun hal shimbir u ahaa ra-daasaan u dambeyday ya-dana waa garano waa calaamatu nasba oo saasaa keentay nuuntu xayta kitaabun ba'daasa u dambeyday isimkan waaya waa hala nasbiyaa layidhi kitaabey ya-daanu waa calaamadii nasbada waa garanay sababta keentay nuuntu maxayta nuuntu wuxuu ku yidhi isimkii mufradkaa tanwiintii ku jirtay bedel ka ta isimkii mufradkaa fiiri cusfuurun tanwiina ku jirtay kitaabun tanwiina ku jirtay tanwiintiiy nuuntaan bedel ka ta markaasu wuxuu ku yidhi wa nuunu nuuntu ciwadun waxay bedel ka tahay can itanwiini tanwiinay bedel ka tahay tanwiintaasoo filismi isimka ku sugneed isimka almufradi la kala yeelay wa mithaalu jamci lmudakari saalim jamc mudakar saalim mithaalkiisii ina almuttaqiina dadka allah ka baqaa layaksibuuna waxay shaqaystaan ridaa rabbihim rabbigood raalli ahaanshadiisa ina almuttaqiina dadka alla ka baqaa layaksibuuna waxay shaqaystaan ridaa rabbihim rabbigood raalli ahaanshadiisa maxashaadku hadda waa halkee almuttaqiina isimka mufradka muxuu ahaa muttaqin mid alla ka baqaya waa jamcu kusaalima hadda waxaa lagu daray ya-daas iyo nuntaas muttaqiina waana kor dhigan yahay oo inada isimka ka dambeya waa la kor dhigaa ina marka almuttaqiina inay kor dhigan tahay calaamadaad ku garanaydo kutusaydaa waa ya-da inay jamcudu kusaalim tahaysan muhano ahayn ya-daanna waxaad fahmi isimka ay ku jirta inuu jamcudu kusaalim yahay ya-da xarafka ka horeeya waa hoos dhigan yahay muttaqi qaafka fiiri xarafka ya-da ka dambeeyana waa kor dhigan yahi muttaqiina nuuntaanuna waxay bedel ka tahay muttaqin tanwiintii ku jirtay markaasu wuxuu ku yidhi iyo wanaxwo nasaxtu waxaan u nasteexeeyey almujtahidiina dadka dadaalaya ardada dadaalayda waxaan ugu nasteexeeyey bilinkibaabi inay ku forarsadaan cala almudaakarati duruusi inay dib u akriyaan
inay duruusta dib u akrinteeda saas maanta oran madaxa ugu raarcinayaan oy madaxa ugu laalaadiyaan saasaan ugu nasteexayn oo kula taliy waxaana duruusta waxa weeyaan lagu waxyooma inta dhegaysato dad meel ku tuurto yaa barti lagugu akriyo agtiisa ay taalaaba markii aad dhaqaaqday kitaabka meeshiiba ka muuqdaaba ma lagu waxyoona markaa dhaqaaqdo waa inaad ku dhibtooto ood akrido oo duruustii dib u mudaakaraydo sidaasaa lagu bartaa nasaxtu waxaan ugu nasteexeeyey almujtahidiina dadka dadaala bilinkibaabi inay ku foorarsadaan cala almudaakarati dib u akrinta oo duruusta dib loo akriyo hadda maclushaadku waa halkee almujtahidiina weye nasaxtu ficlun wa faacilun waa ficliya faacil soo ma jeedid almujtahidu wuxuu ahaa almujtahidu ism mufraduu ahaa jamcu kusaalim in laga dhigaa la go-aansaday ya iyo nuuna lagu daray almujtahidiina jamcu mudakarsaalimkaas waa kor dhigan yahy calaamada kutusayda inuu kor dhigan yahay waa ya-da almujtahidiina ya-daasa kutusayda inuu jamcu kusaalimkaanu kor dhigan yahy ya-duna waa tii jamcu kusaalim ku jirta ee tii musanah maaha oo maxaa kutusaya inuu jamcu kusaalim yahay xarafka ka horeeya ya-da waa hoos dhigan yahay mujtahidun fiiri deelku waa hoos dhigan yahay xarafka ya-da ka dambeeyana waa kor dhigan yahay nuunka taas waxay kutusaya ya-daanu inay ku jirto jamcu kusaalim oysan musano ahayn wax fa kullun mid kasta oo min almuttaqiina ah iyo walmujtahidiina mansuubun waa mid la kordhigay likownihi liajli kownihi inuu ahaaday darteeda loo kordhigay mafcuulan bihi wa calaamatu nasbihi kordhigiisa calaamada lagu garanaana alyaa-u waa ya-da ya-da almaksuuru la hoos dhigay maa xarafka qablaha ka horeeya ya-da almaftuuxu la kordhigay maa xarafka bacdaha ka dambeeya maxaa xarafka ka horeeya loo kordhigay xarafka ka dambeeyana xarafka ka horeeya maxaa loo hoos dhigay xarafka ka dambeeyana loo kordhigay liannahu lafdigaanu jamcu mudakari saalim weeye wa nuunu nuunta ku jirta muttaqiina iyo mujtahidiina ciwadun waxay bedel ka tahay cani tanwiini tanwiintii filismi lmufradi ku sugneed oo mujtahidun iyo muttaqin ku jirtay tamriinaad layliyaal alkalimaatu kelimooyinka alaatiyatu imaa doonta mufradatun waa mid la kala yeelay kelimooyinka soo socdaa waa mufrad fahannihaa tasniye kullahaa dhammaanteed adaa laga raba inaad tasniyeydo fahannihaa tasniye kullahaa dhammaanteed wajmac jamci minhaa alfaada xaalu ka mid yahay maa shayga yasixu ay ansaxaydo jamcuhu in la jamciyo marka hore horta tasniye kulligood waa la tasniyey karaahe markaa tasniyeydo ka gadaal qaarka ay ansaxaydo in jamcu mudakarsaalim laga dhigi karo jamcu mudakarsaalim ka dhig haye wuxuu ku yidhi alkalimaatu kelimooyinka alaatiyatu imaanaya mufradatun waa mid la kala yeelay fahannihaa tasniye kullahaa dhammaanteed wajmac waxaad jamcidaa minhaa kelimooyinka xaalu ka mid yahay maa lafdiga yasixu ay ansaxaydo jamcuhu in la jamciyo jamca mudakar jamciis jamcaasoo saalima nabad galay wahiya alfaada imaanayda waa tana muxamedun waa muxamed faatimatu bakrun assaabuucu dugaagii alkaatibu qofkii wax qoraayay annamiru shabeelkii alqaadi qaadigii almustafa kii la doortay adaa laga rabaa soo tasniye muxamedani faatimataani soo dheh aye markaa tasniyeydo kuwa jamac aqbalaya jamci marka qaaran jamac aqbalayn ayaa ku jira oo faatimatu jamcu kusaalim laguma keeni karo ilaa waa mu'anafe laguma keeni karo marka kuwa aqbalaya soo jamci haye ithnain istacmil isticmaal kula muhanan muhano kasta muhanahaasoo min almuhanayaati muhanayaalka ka mida muhanayaalka alaatiyati imaa doona fii jumlatin jumlo dhexdeedu isticmaal jumlada mufiidati wax faa'ideynayda kelimaadka muhanaadka oo soo socda waxaad gelidaa jumlo mufiida dhexgeli haye bixayu meel jumlo u isticmaal bixayu meelna isticmaal yakuunu uu noqonayo muhanahaasu mansuuban mid la kordhigay waxaa laga rabaa weliba jumlada markaad gelido inuu mansuub noqdo muhanuhu taasaa lagaa rabaa wadbidhu dabdiyo koob bishakli shaqalku koob shaqalka alkaamili kaamilka wahiya muhanayaadki waxa weeye almuxamadaani labadii muxamed alfaatimataani labadii faatimo albakraani labadii bakar assabucaani labadii dugaag alkaatibaani labadii qoraa annamiraani labadii shabeel alqaadiyaani labadii qaadi almustafayaani labadii la doortay istacmil isticmaal kula waaxidin mid kasta oo min aljumuuci jamciyaalka ka mida jamciyaalka alaatiyati imaa doonta
fii jumlatin jumla uu isticmaal jumladaasoo mufiidatin wax faa'iidayda bixaysu meel yakuunu uu noqonaya jamacaasu mansuuban mid la kordhigay waxaa lagaa rabaa jamacyaalka soo socda mid kastoo ka mida jumlo mufiidaa dhexgeli ilaa hal kelimad weeye kelimad kale ama laba kale ku dar markaad ku darto waxa weeyaan waxaad ka dhigtaa weliba asaga mansuub inuu yaha lagaa rabaa oo caamil nasbi aad ka hormarido wadbidhu markaas koob bishakli shaqalku koob shaqalkaaso alkaamila dhamaystiran wahiya jamcayaalku waxay tahay arraashiduuna kuwa hanuunsan raashidun ism mufrad u ahaa jamc musalim suu noqdo wowya nun ku dar raashiduuna almuftuuna kuwa fadwoonaya muftin waxa weyan hal shiiqoo fadwood u ahaa laba mufti oo kale lasoo helay almuftuuna kuwa fadwoonaya alcaamiluuna awal wuxuu ahaa alcaamilu hal qof oo shaqaynaya alcaaqiluuna inin dhigaa waa la mid hade alcaaqiluuna alcaaqilu mufrad u ahaa wowya nuun ku dar alcaaqiluuna alcaamiluuna kuwa shaqaynaya mufradku wuxuu ahaa alcaamilu hal midoo shaqaynaa wowya nuun ku dar alcaamiluuna jamcdu saalim alkaatibuuna mufradku muxuu ahaa alkaatibu hal qof oo wax qoraya wowya nuun ku dar jamcdu saalim ka dir alkaatibuuna kuwa badana wax qoraa almustafawna kuwa la doortay mustafa mid la doorto keligiisu ahaa almustafawna kuwa badana la doortay halkaasna waxaan uga gudubnay muhane iyo jamcdu saalim waxaa lagu nasbiyo inaad ogaatay haddaba horey waxaan usoo nidhi 8 kelima lagaa raba inaad ogaato 8 kelimo wey waxa dhamo la icraaba waa ism mufrada jamcu taksiir jamcu saalim ficil mudaarican waxba aakhirka kala xiriirsan jamcu mudakar saalim asmaa lkhamsa muhana iyo afcaal khamsa 8daas kelimo ahaay 8daas kelimo 14 icraaba lagaaga rabaa han ku yidhi 14 icraab inaad ogaato markay 8da kelimo waxaa lagaa rabaa kelimad kasta waxa lagu rafciya inaad sheegto waxa lagu nasbiyana aad sheegto ism hadday tahay waxa lagu jara aad sheegto hadday ficil tahayna wax lagu jasmiye aad sheegto u fiirso 8daas kelima maxaa lagaa rabaa kelimad kasta waxa lagu rafciya inaad sheegto waxa lagu nasbiya inaad sheegto ism hadday tahay waxa lagu jaro inaad sheegto ficil hadday tahayna waxa lagu jasmiye aad sheegto haddaba jamcu karsaalim muhane waa kasoo gudubna wax lagu rafciya waad soo ogaatay hadda kadib adaa lagu weydiina jamcu karsaalim maxaa lagu rafciya hadda kadib adaa u sheeg adaa lagaa rabaa maxaa lagu nasbiyaa adaa lagaa rabaa ila waad soo ogaatay waa soo baratay haye maxaa lagu jaraa ma aadan gaarin markii la gaaraa lagu bara u fiirso ism mufrada maxaa lagu nasbiyaa waad soo ogaatay adaa lagu weydiina hadda kadib maxaa lagu rafciyaa adaa lagu weydiina u fiirso sow laba ma aha haye jamcu lmu'anath saalim iyo jamcu taksiir maxaa lagu rafciyaa waad soo ogaatay maxaa lagu nasbiyaa waad soo ogaatay maxaa lagu jaraa waa lagu sheegi doonaa waxaa la rabaa waxa weeye inaad kala gato wuxuu kuu kala xirxiran yihin oo iskaga kaa dhex daaban haye ism mufrada waxa lagu rafciyo waad soo ogaateen soo maha ya ism mufrada waxa lagu rafciyo maxaa lagu rafciyaa damo maxaa lagu nasbiyaa fatxo jamcu taksiir maxaa lagu rafciyaa damo maxaa lagu nasbiyaa fatxo jamcu nusaalim maxaa lagu rafciyaa damo maxaa lagu nasbiyaa jamcu nusaalim kasro hay dad badan ay ka hoos bixi doontaa haye jamcu nusaalim waad soo ogaatay haye jamcu mudakar saalim maxaa lagu rafciyaa waaw maxaa lagu nasbiyaa ya muhane maxaa lagu rafciyaa alif maxaa lagu nasbiyaa ya maxaa lagu kala yaqaan ya-da jamcu saalim jamcu nusaalim waxaa lagu kala yaqaan ya-da jamcu mudakar saalim xarafka ka horeeya waa hoos dhigan yahy xarafka ka dambeeyana waa kor dhigan yahy muhanaha maxaa lagu yaqaan ya-diisa xarafka ka horeeya waa kor dhigan yahay xarafka ka dambeeyana waa hoos dhigan yahay hayehe ka soco niyaabatu xadfi nuuni xadfu nuunkii naaib noqoshadiisa can ilfatxati fatxada ou ka naaib noqdo meeqan calaamay laheyd nasbadu 5 calaamo alfatxatu waalkasratu walyaa-u wa xadfu nuuni haye waalif haye waxa weeyaan waan ka soo baxnay fatxadii calaamadii asalka u aheyd nasbada oo fatxo aheyd ko waan ka soo baxnay calaamadii alifka aheyd 2 waan ka soo baxnay calaamadii kasrada aheyd 3 waan ka soo baxnay calaamadii ya-da aheyd 4 calaamadii ugu dambeyday oo noo dhimaneed oo calaamadaha nasbada ka mid a waa maxay xadfu nuun halkuu calaamad ugu noqdaa nasbada taasaa la gelaya niyaabatu xadfi nuuni xadfu nuun ka naaib noqoshadiisa can ilfatxati fatxada uu ka naaib noqdo xadfu nuun waxa weeyaan calaamadaha nasbadu ka mid yihi hal meelu calaamad ugu noqdaa marka meeshii lagu sheegi
qaala wuxuu yidhi maxamed ibnu daawuud asinhaaji wa amaa xadfu nuuni nuunta xadafkeeda fa yakuunu xadfu nuunkii calaamatan calaamo u ahaadaa linasbi kordhigu calaamo u ahaadaa fil afcaali afcaashi dhexdeedu calaamo ugu ahaadaa afcaashi alkhamsati oo shanta aheed allatii afcaashii rafcuhaa la godideedu bihabaati nuuni nuuntoo la suga uu ahaa jiri waxa weeyaan xadfu nuunku hal meel uu calaamad ugu ahaadaa nasbada hal meel uu calaamad ugu ahaadaa nasbada waa maxay halka meeluhu waa afcaalu lkhamsa afcaalu lkhamsa inay nasbisan tahay maxaa lagu yaqaan waa in nuuntii laga waayo nuuntii markii la godo aakirka uga jiri jirtay waa inay maqnaato hadday nuuntii joogto waa kor dhigan tahay lama dhihi karo afcaal khamsa ya afcaal khamsa nuuntii muuqato lama dhihi karo waa nasbisanta waa in nuuntaas la waayo weyntaasa u calaamaa yadribaani tadribaani yadribuuna tadribuuna tadribiina markii ay godneed nuuntaasaa lagu yiqiin inay godanta marka la nasbiyo la kor dhigo waa in nuuntii meesha ka maqnaato ya calaamada lagu yaqaan ka waran haddaan ku idhahdo yafcalaani ma kor dhiganta oo tira waa kor dhiganta nuuntii meesha ka muuqata khalad wey maxaan ku yidhi afcaalu lkhamsa inay nasbisan tahay maxaad ku garane nuunta in meesha laga waayo lan yafcalaa walan tafcalaa walan yafcaluu walan tafcalii khalaas mar haddii nuuntii la waayay waa kor dhiganta lan yadribaa walan tadribaa walan yadribuu walan tadribuu walan tadribii aawa nuuntii lantaana cuntay lantaana ku tagtay lantaan iyala isma tuso nuunta lantaan qofka haddii isagoo cudur qaba fin ke haddii dawo la siiyo jermiskaas cudurkaasoo cunime dawadu lantaan waa saas lantaana mar hadday timaado lantaan waxbay nasbidaa soo maa afcaalu khamsada haddii xaraf nasbiya ka hormaro nuunta waa meesha waa ka tegi la arki ma soo maadaan arag dalaqaysiisane ma fahan marka afcaalu khamsa inay nasbisan tahay maxaa lagu gartaa nuunta inay meesha laga waayo sidaas weeya calaamad inay kor dhigan tahay afcaalu khamsa waxaba waa nuunta in la waayo xadafka nuunta la xadfaa waa calaamad lagu garto afcaal khamsa inay kor dhigan tahay or intaas maad fahmi wey haye niyaabatu xadfi nuuni nuunta xadafkeeda naaib noqoshadeeda xadfu nuunkaas yuu naaib ka yahay isago asal maahane canilfatxati fatxu naaib ka yahay ogow haye wuxuu ku yidhi qaala wuxuu yihi maxamed ibnu daawuud asinhaaji wa amaa xadfu nuuni nuunta la xadfideeda fa yakuunu xadfu nuunku calaamatan calaamu u ahaadaa linasbi kordhiga halkuu ugu ahaadaa fil afcaali afcaashi alkhamsati oo shanta aheed allatii afcaashi rafcuhaa la godideedu bihabaati nuuni nuuntoo sugan u ahaa afcaashi lagu godi jiray nuuntu inay joogto waxaa lagu nasbiyaa nuuntu inay maqnaato war ma fahanteen intaas haye waaqulu waxaan leeyahay maxamed maxamudiin cabdilxamiid qad carafta waad soo garatay mima baabkii sabaqa soo hormaray maa hiya alafcaalu afcaal maxay tahay afcaashi alkhamsatu shan tahay afcaalu lkhamsa maxaa la yidhaa baabka horeod kusoo baratay waa aad taqaanaa waa ficil mudaaric oo aakirka lagala xiriiriyey alifulithnain ama waawuljamaaca ama yaa lmuanasat mukhadaba ficil kasta oo mudaaric oo saddexdaas mid kamida lala xiriiriyay afcaalu khamsa la soo maadan garan baabka horeod kusoo garat walaana haddeer nukhbiruka waxaan kuu sheegaynaa annahu shaaniye yumkinuka waxaa suurtagal ku ah an tacrifa inaad garato nasba kulli waaxidin mid kasta la kordhigidiisa waaxidkoo minhaa afcaashaas ka mida shanta haye maxaan ku garan idaa wajadta markaad hesho annuuna nuuntii idaa wajadta markaad hesho annuuna nuuntii allatii nuuntii takuunu ahaa jirtay calaamata rafci godka calaamadiisa maxduufatan xaalatay mid la xadfay markaad aragto nuuntii oo la xadfay maxaad garanee inay afcaashaan kor dhiganta saasaa suurtagal ku ogoy waxaa suurtagal ku ah inaad ku garato afcaashaan inay kor dhigan tahay nuuntii calaamatu rafcada ahaa jirtay oo la xadfay markaad aragto oo meesha ka maqan u fiirso wuxuu ku yihi walaana haddeer nukhbiruka waxaan kuu sheegaynaa haddaad dhaga leedahay annahu shaaniye yumkinuka suurtagal waxaa ku ah an tacrifa inaad garato nasba kulli waaxidin mid kasta la kordhigidiisa oo minhaa afcaashan ka mida waa goorma idaa wajadta markaad hesho ama markaad ogaato wajadada wujdaan inta laga keeno bimacnaa calima ka dhig haddaa rabto
idaa wajadta markaad ogaato annuuna nuuntii allatii nuuntii takuunu ahaa jirtay calaamata rafci godka calaamadiisa maxduufatan mid la xadfay inay tahay markaad ogaatid markaas waxaad garanay afcaashaas inay nasbisan tahay wa mihaaluhaa afcaasha mihaalkeedii fii xaalata nasbi xaalo ay ahaatay iyadoo xaalatu nasba joogta afcaashii qowluka waa qowlkaaga aad tidhaahdo yasurunii waxaa i farxad gelinaya an taxfaduu inaad soo xifdinaa duruusakum casharadiin duruustii aan iniin akriyey inaad soo xifdideen taasaan ugu faraxsanahay oo waxaan u dareemayaa dad dadaalaya inaad tihiin oo dad wakti lagu baxiyo oo lagu dadaala inaad tihiin maxaa ila idinkiibaa dadaalaya fiiri yasurunii fiiri yasuru waa ficil mudaaric iska da iyada maxalushaadku maanta maahan taxfaduuna afcaal khamsa waa kaasa taxfaduuna ficilka mudaaric asal muxuu ahaa taxfadu wow la xariiri taxfaduuna xaalatu rafci saas u ahaa an ka hormari antu waxbay nasbida ficilka mudaaric nasbida oo ka dambeeya an taxfaduu hadda taxfaduu ma nasbisanta ha maxaad ku garanay ina nasbisanta nuuntiyaa maqan waa kaasaa nuuntiya la waaya khalaas intaasa calaamad kuugu ah ha sii dayn intaas waaye yasurunii waxay farxad gelinaya an taxfaduu inaad xifdidaan duruusakum casharadiina sidaas weeye duruusakum casharadii iyo wanaxwu yu'limunii waxaa i xanuujinaya wadnaha i xanuujiyey min alkusaala wehselowyaalka kuwa wehselowyaalka oo wehsanaya oo aan dadaalayn kuwaas waxaa i xanuujinaya an yuhmiluu inay dayacaan fii waajibaatin waajibyaalkooda yu'limunii waxay xanuujinaya wadnaha igooye min alkusaala wehselowyaalka an yuhmiluu inay dayacaan fii waajibaatin waajibyaalkooda maxalshaahidka maanta waa halkee yuhmiluu waayo hadda yuhmiluu asalkeedii yuhmilu u ahaa ficil mudaaric on waxba la xidhiirin aakhirka waa lala xidhiiri si afcaal khamsa looga dhigo yuhmiluuna anaa laga hormariyey oo ficilka mudaaric ka dambeeya kor dhigta an yuhmiluu hadda an yuhmiluu waa afcaal khamsa inay nasbisan tahay waad garan kartaa haddaad indha leedahay amaad dhega leedahay sababtoo ah maxaad ku garan nuuntiya ka maqan khalaas way kor dhiganta marka haye wuxuu ku yidhi marka fa kullun mid kasta oo min taxfadu ah fa kullun mid kasta oo min taxfadu ah iyo wa yuhmiluu ficlun mudaaricun waa ficil mudaaric mansuubun waa la kordhigay bian ayaa lagu kordhigay wa calaamatu nasbi kordhigiisa calaamadaad ku garan xadfu nuuni waa nuunta la gooyey nuunta la gooyey oo la xadfay weeye wa waawuljamaacati wowda jamaacada taxfaduu yuhmiluu wowda ku jirta waayo wa waawuljamaacati wowdaas jamaacada faacilun waa faacil mabniyun waa la bineeyey calaa sukuuniyaa lagu bineeyey fii maxali rafcin god makaankiis xaalu ahaaday wa kadalika sidaasoo kale waxaa almuttasilu ficilka la xidhiidha bialifilithnain ficilka alifilithnain la xidhiidha waa sidoo kale ila afcaal khamsuu ka mid yahay naxwu yasurunii waxay farxad gelinaya an tanaalaa inaad gaartaan raqabaatikumaa waxyaalahaad rabteen rabitaanadiini yasurunii waxaa i farxad gelinaya an tanaalaa inaad gaartaan raqabaatikumaa rabitaanadiini asal muxuu ahaa tanaalu waad gaaree haye alif la xidhiidhi afcaal khamsuu noqdo tanaalaani tanaalani uu noqdo ka hormari an tanaalaa haye khalaas marka an tanaalaa inay nasbisan tahay waad garanay kor dhigan tahay maxaa calaamad kugu inay kor dhigan tahay xadfu nuun nuuntan la gooyo la xadfay nuuntiyaa maqan waaya raqabaad iyadoo iska taqanaa waxa weeyaan waa jamcu nusaalim waxa weye waana nasbisan yah calaamatu nasbihi kasradan waatan ka muuqata yasurunii waxay farxad gelinaya an tanaala inaad gaartaan raqabaatikumaa rabitaanadiini walmuttasilu midkii la xiriirsaday biyaa-i lmukhaadabati islaan lala hadlaa ya-deedna kadalika waa sidoo kale ila afcaal khamsadu ka mid yahay hadday la xidhiirsato ya muanas mukhaadaba naxwu yu'limunii waxaa i xanuujinaya oo wadnaha iga xanuujiyey an tufaridii inaad ka gaabiday fii waajibiki gabar yahay waajibkaagii xijaabkii waxa weeyaan inaad ilaalido inaad ka gaabiday taasaa wadnaha i xanuujiday yu'limunii waxaa i xanuujinaya an tufaridii inaad ka gaabido fiiri tufaridu u ahaa ficilka mudaaric oon waxba la xidhiirin yaa muanasati mukhaadaba lala xidhiiriyey tufaridiina ka hormari an marka
an tufaridii marka inay nasbisantaad garanay calaamadaad ku garanay waa maxay nuunta maqan wey nuunta la xadfay yulimuni waxay xanuujinaya an tufaridii inaad ka gaabido fii waajibiki waajibkaaga waqad carafta waadna garatay kayfa sida tucribuhuma ad u icraabaydo an tanaalaa iyo an tufaridii sidaad u icraabaydo waad soo garatay labada waa soo garato oo waxa wey an talaanaa waxa wey waa ficil mudaaric mansuub wey wa calaamatu nasbihi xadfu nuuni an tufaridiina waa kadalika an tanaalaa alifta waxay leedahay faacil mabniyun cala sukuni fi maxali rafcin ya-daana maxay leedahay walyaa muanasa mukhaadabati faacil mabniyun cala sukuni fi maxali rafcin alifta iyo ya-du mar kasta waa kuu faacil waana mabni haye tamriinaat istacmil isticmaal alkalimaati kelimooyinka alaatiyati imaa doona marfuucatan xaalay tahay mid la goday maratan mar wa mansuubatan xaalay tahay mid la kordhigay maratan mar markaasoo ukhraa kale fii jumalin jumlooyin dhexdood inta gelidoo isticmaal jumlooyinkood mufiidatin wax faa'iideynayda wadbidha kelimooyinka koob bishakli shaqalku koob kelimooyinkana lagaa rabaa waxa weyan alkitaabu kitaab alqirdaasu warqado alqalamu qalam addawaatu jiray dawaad hadda dhowr gooran soo sheegnay dawaadka waa weelka anqaasta lagu shubto ama weelka qadda lagu shubto qadda weelka lagu shubaa la yidhaha dawaad dhowr gooran kusoo celcelin waxa weyan annaga marka haddaan reer miyi ahayn waxaan niqiinay geed la qorayaan ku shuba jirin laakiin carabtu weel oo waxa weeyaan oo adugu dhala aad moodo af weyn xoogaa leh korna laga daboolo ayay ayagu ku shubtaan calaa kulli xaal midku raba ha ahaadee mid kasta oo lagu shubto ayaa la yidhaahdaa mid kasta oo lagu shubto ayaa la yidhaahdaa kaasaa la yidhahdaa marka dawaadka waa weelka qadda lagu shubto annamiru shabeelkii aad leedahay annamiru shabeelkii ayaad leedahay annahru webigii alfiilu maroodigii alxadiiqatu beertii aljamalu ratigii albustaanu albasaatiinu dheh asendooyinkii almaqaanimu hanimooyinkii hantidii gaalada laga soo qaatay alaadaabu aadaabtii yadharu waxaa muuqana asad waa kelimad ma ahan isma saarna adaa la rabaa inay soo saarto ood kalaam mufiida ka soo dhigto yadharu waa muuqana alsaadiqaatu gabdhaha runta sheega alcafiifaatu gabdhaha dhowrsan alwaalidaatu hooyooyinka alikhwaanu walaalaha alasaatidatu mucalimiinta almucallimuuna mucalimiinta alaabaau aabbayaalka akhuuka walaalka alcalamu calanka calam buurta waa la yidhaha alcalamu buurta alcalamu raadka alcalamu waxa weeyaan calaamadda alcalamu barta marada ku taalla waxaasna waa wada calam barta marada ku taalla maarta calam aa la yidhahdaa calankan oo dawladdu leedahay calam aa la yidhahdaa buurta calam aa la yidhahdaa ka badanna calam aa la yidhahda calamku intaas kaliya maaha haye almaru'atu sharafta maru'ada waa sumcadda qofka sharaftiisa inuu ilaashadaa laga rabaa alsadiiqaani labadii saaxiib abuuka aabbaha alasdiqaau saaxiibadii almu'minuuna mu'miniinta azuraacu beeralayda almuttaquuna dadka alla ka baqa taquumaani waad istaagaydaan yalcabaani way cayaaraya waa kelimaad caladoon is saarayn ee midmidaa lagugu sheegaya adaa lagaa rabaa waxaa lagu yiri kelimooyinka inta isticmaashid waxaa lagaa rabaa mar inaad godid oo caamil waxa weyan godo gelidid mar aad nasbidid waxa weyan sidaasaa lagaa rabaa as'ila mataa goormee takuunu lkasratu kasradu ay noqotaa calaamatan calaamad calaa nasbi kelimadan inay kor dhigan tahay waxaa lagaa rabaa kasrada meeshay ay calaamada ugu ahaa jirtay nasbada oo kasradu goormay ku tustaa kelimadu inay nasbisan tahay waa jamcu salim soo maha saas inaad uga soo jawaabtaa lagaa rabaa saasaa lagaa rabaa mataa goormee takuunu yaawiyadu noqotaa calaamatan calaamad linasbi kordhiga kelimadu inay kor dhigan tahay goormay u noqotaa ya-du calaamad soo sheeg meelihii meeqa meelood soo sheeg fii ka mawdicin meeqa meelood ayuu yakuunu noqdaa xadfu nuuna xadfu nuunku calaamatan calaamad linasbi kordhiga u noqdaa mathil usoo mithaali bal lijamci lmuanathi jamci muanafka ahaa almansuubi oo la kor dhigay oo kasrada lagu nasbi jira calaamat nasbihiisu ahaa bimithaaleyni laba mithaal usoo mithaali wa acrib icraab waaxidan mid oo minhuma labadooda ka mid a mathil waxaad kaloo soo mithaalidaa lilafcaali afcaashi alkhamsati shanta aheed afcaashi almansuubati la kor dhigay bihalaathati amhila 3 mithaal kusoo mithaali adaa lagaa rabaa berri inaad keento
wa acrib waxa weyan icraab waaxidan mid oo minhaa saddexda mithaal ka mid a mathil waxaad kaloo mithaalidaa lijamci lmudakari saalim jamci mudakari saalim mithaali jamacaasoo almansuubi la kordhigay bimithaaleyni laba mithaal ku mithaali mathil waxaad kaloo mithaalidaa lijamci lmudakari saalim jamci mudakar saalimna mithaali jamcaasoo almarfuuci la goday bimithaaleyni laba mithaal ku mithaali mathil mithaali lilmuhana muhane almansuubi la kordhigay bimithaaleyni laba mithaal ku mithaali mathil mithaali lilmuhana muhane muhanahaasoo almarfuuci la goday bimithaaleyni laba tusaale ka bixi mathil haddana mithaali lilafcaali alkhamsa afcaal lkhamsa afcaashaasoo almarfuucati la goday bimithaaleyni laba mithaal ku mithaali calaamaat lkhafdi calaamadaha hoos dhiga qaala wuxuu yihi maxamed ibnu daawuud asinhaaji walilkhafdi hoos dhiga waxaa usugnaaday 3 calaamaatin 3 calaamo alkasratu kasra usugnaatay walyaa yaa usugnaatay walfatxatu fatxa usugnaatay halkan hadda waxaan ka gelaynaa isimka unbaa la khafdiya horaan usoo ogaan aqsaam licraab aan kusoo ogaan waxa weeyaan ficil lama khafdiyo calaamadaha kelmaddaanu inay khafdisan tahay ama hoos dhiganta lagu garta halkaan ka gelayna calaamadaha kelmaddaanu inay khafdisan tahay lagu garto aan halkaan ka gelayna waa ka soo baxnay calaamadihii nasbaha calaamadihii rafcaha noo horreeyey waa ka soo baxnay rafco 4 calaamay leheed calaamad walbaaba meeshay degto waa soo ogaanay calaamadaha kelmaddu inay nasbisan tahay lagu gartana waa soo ogaanay nasba 5 calaamay leheed 5 calaamad walba meeshay degto waa ka soo baxnay hadda waxaan gelaynaa kelmadan isim kaliyaha la khafdiya horta bal kelimadan calaamada lagu garto inay khafdisan tahay taasaan gelaynaa calaamaat lkhafdi hoos dhiga calaamadihiisa haadihi maxaluhaa meeshaan waa meeshii lagu baranayey qaala wuxuu yihi maxamed ibnu daawuud asinhaaji walilkhafdi hoos dhiga 3 calaamaatin 3 calaamaa usugnaatay alkasratu kasra usugnaatay walyaa yaa usugnaatay walfatxatu fatxa usugnaatay kelimad marka la khafdinaa 3daas bisa lagu khafdiya 3daas calaamo mid kamida waa in lagu arko kasro waa asal iyada u ah iyo ya iyo fatxo oo naacib ka noqda kasrada labadooda waxay naacib ka noqdaan kasrada 3doodana mid walba meelay degi wax haddii lagu yidhi khafda laga hadlaayan haddee ficil lagaba hadli ma ila ficil lamaba khafdiye walaa khafda fiiha waad soo ogaad isim unbaa laga hadli waay wa aqulu waxaan leeyahay uri maxamed muxidiin cabdilxamiid yumkinuka waxaa suurtagal ku ah an tacrifa inaad garato ana alkalimata kelimadda makfuudatun mid la hoos dhigay inay ta inaad garato idaa wajadta markaad hesho fiihaa kelimadda dhexdeeda waaxidan mid markaad ka hesho waaxidkoo min 3 ashyaaa 3 shay ka mida 3 shay mid ka mid a haddaad kelimadda ku aragto waxaad fahmaydaa kelimadaasu inay hoos dhigan tahay kelimadaasu inay hoos dhigan tahay alawalu kan ugu horeeya 3 shay oo lagu garto kelimaddu inay hoos dhigan tahay alkasratu kasra wey haddaad kasra ku aragto kelimaddu inay hoos dhigan tahay waad fahmi wahiya kasraduna alaslu asl iyada u ah fi lkhafdi in wax hoos dhigidda wahiya kasradu alaslu asl iyada u ah fi lkhafdi hoos dhiga wathani shayga labaad oo lagu garto kelimaddu inay hoos dhigan tahay alyaa ya weeye wathaalithu shayga saddexaad oo lagu gartaa alfatxatu fatxa weeye wahumaa ya-da iyo fatxadu farcaani waa laba farac can ilkasrati kasraday farac ka yihin naacib ka noqdaan ee iyagu asal maahan walikulli waaxidin mid kasta oo min haadihi lashyaai shayaalkan ka mid a shayaalkan 3 oo 3 ah waa kasra iyo ya iyo fatxo mawaadicu meelaa usugnaaday 3dan calaamo mid kastoo ka mid a mawaadicu meelaa usugnaaday meelahaasoo yakuunu uu ku sugnaado fiiha meelaha dhexdooda 3dan mid kastaaba meelay degtaa oy calaamad ka noqotaa ee meeshaad rabto un iskama deji kartid kelimadda markaad hoos dhigaydo calaamad gooniyaho lagu hoos dhigay mid walbaa leeda ee 3dan mid un ka mid a kelimadii lahoos dhigaa layskagama hoos dhigo waayahay wuxuu ku uhi walikulli waaxidin mid kasta oo min haadil ashyaa shayaalkan ka mid a 3 mawaadicu meelaa usugnaaday meelahaasoo yakuunu uu ku sugnaado fiiha meelaha dhexdooda wasanadkuru waa sheegi doonaa daalika arrinkaas tafsiilan kala saarid fii maa yelisa baabka soo socda waxa weeyaan haddaan mar kaleeto wax yar ku celino kelimooyinka la icraaba imisay ahaayeen kelimooyinka la icraaba meeqay ahaayeen 8 ahaayeen haye sheeg tirdi 8
اسم مفرد تردين جمع تكسير جمع منصالم فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أسماء الخمسة جمع ذكر سالم مثنى iyo afcaal khamsa sideedaasi ahaayeen sideedaas marka fiiri mid walba waxa lagu rafciyo waa soo ogaanay soo ma haye mid walba waxa lagu nasbiyana waa soo ogaanay hadii baabul khafd la joogo laba ka saar ficil mudari alladhi lam yattasil bi akhir shay ka saar hayla waa ficil asaga lama khafdiyo afcaal khamsana ka saar illa lama khafdiyo waa ficil ayaga labadaas waxay leeyihiin baabka soo socday kaligood iska leeyihiin oo jismaha ah baabkan oo khafdaa marka la joogo waxa laga hadlaa waxa weeyaan waa lix waa maxay waa ism mufrada jamcu taksir jamcu musalim jamcu mudhakkar salim asmaa'ul khamsa iyo muthanna lixdaas la rabaa mid walba waxa lagu khafdiyo inaad ogaato illa waxa la khafdiyo waa ism lixdaas waxa la rabaa mid walba waxa lagu khafdiyo inaad ogaato calaamadaha khafdaduna waa maxay waa saddexdan calaamo waxa la rabaa lixdaas kelimo mid walba calaamada lagu khafdiyo inaad ogaato intaas maskaxdaadu waa inay qaadaan الكسرة كسردي iyo ومواضعها meelahay degto هذه محلها قال وحر محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى فأما الكسرة كسردي فتكون كسردي علامة يهاتا للخفض هوسنقي علامة وهاتا في 3 مواضع صدح ميلود علامة وهاتا وفرس كسردي أقول إذا إيضا أصل إيضا الله مرنا كسرد خفضة صدح ميلود علامة أقوتا كسرده waa shaqalka hoos dhigawa yarka hoos lagu qor xariiqinta yartawa haye faamal kasratu kasradi fatakunu kasradi calaama yahata lil khafd hoos dhigay calaama u ahata fi 3 mawaadi'a saddex meelood calaama ugu ahata fi ismi ismki dhexdiisa calaama ugu ahata ismki al mufradi oo la kali yeelay ismki al munsarif oo sarfumay intaana baabkan gelin calaamatu nas calaamatu al i'raab wa imsa guud ahaan waa afar uu leeyahay fiiri bal hadda ninkaas intaas u fadhiyo 4 iyo 10 way 4 iyo 10 way soo ma jeedid calaamatu al-i'raab waa imisa waa 4 iyo 10 haye meeqad hore u soo qaadateen 9 calaamatu rafca meeqay ahaayeen 4 calaamatu nasb meeqay ahaayeen 5 isku dar 9 soo maahan calaamatu al-khafd hadda meeqad joogta 3 ku darso waa imisa 12 maxaa ku dhiman 2 ku dhiman ha hurdin waxa weyn labadaas diga sugi aniga 12 aad haysataa soo ma haye ka hoos bix marka saddexdan calaamo oo calaamadaha khafdada midda ugu horeydo asalka oo kasra soo qabo marka faamal kasratu kasradi fatakunu kasradi calaama yahata lil khafd hoos dhigay calaamo u ahata fi 3 mawaadi'a saddex meelood calaamo ugu ahata kasradu khafdada saddex meelood calaamo u ahata saddex kelimo marka la khafdinayo kasra lagu khafdiya fi ismi al mufradi ay calaamo ugu ahata ismki al munsarifi ee sarfumayo tanwiinta aqbalay u fiirso marka xaalatu rafca joogna fi ismi al mufradi la kala qaadima ee dama lagu rafcan soonid xaalatu nasba markaan joognay ismi mufrada la kala qaadima ee fatxa lagu nasbinaan soonid xaalatu khafda marka la joogo ismi mufrada waa la kala qaado waxa la yiri ismi mufrada laba loo kala qaadi munsarif inuu yahay ism tanwiin aqbalay iyo inuu yahay ma la yansarif midan tanwiin aqbalay waxa kasrada lagu khaftiya waa munsarifka maxaa soo haray ma la yansarif waa soo socda warkiis ka hordegi meen waayahay ism mufradahu munsarif ah kasra lagu khaftiya ko wa jam'i taksiri al munsarif jam'u taksir markaan joognay xaalatu rafca waxaan ina la kala qaadi ma ee jam'u taksir oo dhan dama lagu rafciya haye xaalatu nasba markaan joogno waxaan ina jam'u taksir la kala qaadi ma ee waxa weeyaan fatxa lagu nasbiya hadda khafda markii la joogay waa la kala qaadaa alwi satarteeda dilwada jam'u taksir maxaa lagu jaraa waxaas lagu jaraa jawaab ma aha waa ina tira waa la kala qaadaa laba loo kala qaadaa munsarif iyo ma la yansarif munsarif haduu yahay kasra lagu khafdiyo calaamad waa ma la yansarif noo soo socda baabkiis haye wa jam'i taksir jam'u taksirna calaamad ugu ahata jam'u taksirki al munsarif sarfumay wa jam'i al muannath salim jam'u salimna calaamad ugu ahata jam'u salim sagala kala qaadima maxay ma la yansarif ma wala isagu kulligiis waa munsarif kulligiis waa munsarif haye واقول waxaan kula yahay yukiri lil kasrati kasrada 3 mawaadi'a saddex meelood u sugnaatay
saddexdaas meeloodoo takuunu ay ahaato fii kulli waaxidin mid kastoo minhaa saddexda ka mid a calaamatan calaamad ay u ahaato calaa ana alisma isimkaas makfuudun in la hoos dhigay. saddex meelood ayay degtaa kasradu. saddexda meeloodba waxay calaamad u tahay oy tustaa isimka ay ku jirtaa inuu makfuud yahay. almawdicu alawal meesha ugu horayda alismu lmufradu waa isimka la kala yeelay almunsarifu oo tanwiinta aqbala. wuxuu ku yidhi waqad carafta waad soo garatay macnaa kownihi isimka ahaanshadiisa macnaheeda mufradan uu yahay. mufrad xaal loola jeedaa waad soo garatay, baad dhamad ku soo barat maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaa alkhamsa waad soo barat. wa macnaa kownihi laakiin hadda waxaa rabtaa in lagu baro munsarif xaal loola jeedaa. wuxuu ku yidhi wa macnaa kownihi isimka ahaanshadiisa macnaheeda munsarifan munsarif uu yahay macnaheedu waxa weeye ana sarfa tanwiinta yalxaqu waa haleelaa aakhirahu isimkan aakhirkiisa. isimkan aakhirkiisa sarfiyaa haleelaayo wey oo sarfi xaa laydhaha wa sarfu sarfigu huwa tanwiin waa tanwiin. isimkan aakhirkiisa tanwiinaa gelayda wey haddii lagu yidhi isimku waa munsarif. haye naxwo sacaytu waxaan u degdegay ilaa muxamadin. muxamedin waa isim mufrada oo munsarifa, caamil hoos dhigaa ka hormaro waa ilaadaas. haye maxaa lagu khafdiyey kasro waa ujeedaa khalaas. waa naxwo radiitu raaliyan ka noqday can caliyin cali. caliyin waa isim mufrada waana munsarif oo waatan tanwiinta ku jirto. haye caamil wax hoos dhigaa ka hormaray oo ah canta maxaa lagu khafdiyey kasro kasra lagu khafdiyey. wa naxwu istafadtu waxaan ka faa'iidaystay min mucaasharati khaalidin khaalid la dhaqmidiisa. aadan akhlaaq fiicanaan ka faa'idaystay iyo dhaqmo wanaagsan. istafadtu waxaan ka faa'idaystay min mucaasharati khaalidin khaalid la dhaqankiisa la dhaqmidii aan la dhaqmay aadan uga faa'iiday. maxalushaydku waa maxay? khaalidin 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 iyo min mucaasharati mucaasharati mucaashara waa ism mufrada waa ism mufrada waxa weeye mucaasharati min a ka hormartay oo caamil wax hoos dhiga ah. haye maxaa lagu khafdiyey kasro. wa naxwu acjabanii waxa iyaab geliyey oon aad u jeclaystay khuluqu bakrin bakar dhaqankiisa. haye acjabanii waxa iyaab geliyey oon aad u jeclaystay khuluqu bakrin yarkan bakara akhlaaqdiisii dhaqankiisa ayaa aad u jeclaysta o aad u akhlaaq fiicayn. bakrin fiiri bakrin waa isim mufrada waa caamil hoos dhiga ka hormar oo mudaafka ka horeeya oo khuluqda ah. haye maxaa lagu hoos dhigay kasro. wuxuu ku yihi fa kullun mid kasta oo min muxamedin ah iyo wa caliyin makfuudun waa la hoos dhigay. maxaa loo hoos dhigay? caamilka hoos dhigay muxuu yahay? lidukhuuli xarfi lkhafdi xaraf wax hoos dhiga ah galay caleyhi korkiisa. xaraf wax hoos dhigaa galayoo waxa weeyaan muxamedinna ilaadaasaa gashay oo aan horay usoo ogaan inay wax hoos dhigto. caliyinna canaa gashay oon horay usoo ogaan inay hoos dhigto. wa calaamatu khafdihi hoosdhigiisa calaamada lagu garanaana alkasratu waa kasrada addaahiratu ka muuqata. wa kullun mid kasta oo min khaalidin iyo wa bakrin ah makfuudun waa la hoos dhigay oo caamilka hoos dhigay aawe liidaafati ma isim tiirintiisa daraaddeed qablahu ka horeeya ilayhi xaggiisa loo soo tiiriyey. isimka ka horeeya aa mudaaf ah asna waa mudaaf ilayhi khalaas taasaa lagu hoos dhigay. marka mudaafka hoos dhigay mudaafka ayaa hoos dhigay oo waxa weeye khaalidin waxaa hoos dhigay mucaashara mucaasharadaasa mudaaf ah khaalidin waa mudaaf ilayhi. bakrin waxaa hoos dhigay khuluqu khuluqdu waa waxa weye waa mudaaf bakrina waa mudaaf ilayhi mudaafkaasa caamila. markaasuu wuxuu ku yidhi waxa weeyaan wa kullun mid kasta oo min khaalidin iyo wa bakrin ah makfuudun waa la hoos dhigay liidaafati ma isim tiirintiisa darteeda qablahu ka horeeya ilayhi isaga loo soo tiiriyey fiiri in loo soo tiiriyey. markii aan laqbaynayna maxaan idhi min mucaasharati khaalidin khaalid la dhaqmidiisa mucaasharada khaalida loo tiiriyey. haye acjabani waxaa yaabgeliy khuluqu bakrin bakar dhaqankiisa dhaqankan yaa iskaloo loo tiiriyey bakar. khalas taasaa sidaasa loo hoos dhigay. wa calaamatu khafdi hoosdhigiisa calaamada lagu gartaan alkasratu waa kasrada addaahiratu muuqata aydan noqoshee. wuxuu ku yidhi wa muxamedun iyo wa caliyun iyo wa khaalidun iyo wa bakrun asmaaun magacyaal weeye mufradatun la kali yeelay. wahiya haddana asmaadaasuna munsarifatun waa mid tanwiin aqbalayda munsarifo wey. wahiya asmaadaasuna munsarifatun waa munsarifo liluxuuqi tanwiini tanwiinta haleelideeda u daliila laha asmaada ay haleeshay
tanwiintan haleeshaa kutusayda inay munsarifta khalaas marka halkaas maxaad ogaatay isimka mufradka ah oo munsarifka ah waxaa lagu khafdiyaa kasro haye isim maxaa la yidhaha munsarifna isim munsarifana maxaa la yidhaahdaa isim munsarifa maxaa la yidhaahdaa waa isimka tanwiintu aqbalaya sarfiga la sheega waa tanwiinta halkaas marka waa hal meela oo aan ogaanay kasradu inay calaamad ugu noqoto khafdada isimka mufradka munsarifka wey hal mawdic waa ka gudubn walmawdicu thani meesha labaad oo kasro ay khafdo calaamad ugu noqotaa jamcu taksiiri jamcu taksiir wey jamcu taksiir oo dhan maaha waa la kala qaada jamcu taksiirka almunsarifu oo sarfoomaya oo tanwiinta aqbalaya waqad carafta waad soo garatay uu ku yidhi mima baabkii sabaqa hormaray macnaa jamci taksiir jamcu taksiir maxaa loola jeedaa waad soo garat war ma soo garateen haye muxuu ahaa jamcu taksiir o ithnatayni maca tagayurin fi siiqati mufradi waad soo garatay waa inaad daabidkii soo xifsado ku laabataa haye wuxuu ku yidhi waqad carafta waad soo garatay mima baabkii sabaqa hormaray macnaa jamci taksiiri jamcu taksiir macnihiisa waad soo garatay wa carafta waxaad garatay fi lmawdici meeshii alawali ee horreeyo huna halkaan haddeer intaan kasrada ka hadlaynay waa isimku mufradka markaan ka hadlaynay wa carafta waxaad soo garatay fi lmawdici booskii alawali ee horreeyey huna halkan oo baabkan ah macnaa kownihi isimka ahaanshadiisa macnaheeda munsarifan uu yahay maxaa loola jeedaa munsarifna halkaanaad kusoo garat oo waxaa loola jeedaa waa in tanwiinu aakhirka ka geli karto haye waa la gartay waa soo garatay macnaa kownihi munsarifan wadalika naxwu marartu waxaan soo maray birijaalin raggaasoo kiraamin wan wanaagsan u fiirso rijaalin jamcu taksiira rajulin rijaalin kariimin kiraamin kariimin mufradki ahaa kiraamin alagu jamciye oo jamcu taksiira taqyiirka galay adaa laga raba inaad ka soo saarto sida loo taqyiiriy 6dii taqyiir kaa galay haye wanaxwo raditu raalliyan ka noqday can asxaabin saaxiibadaasoo lanaa noo sugnaaday saaxiibadaasoo shujcaanin geesiyaal ah waxaa lagaa rabaa fiiri asxaabin mufradkii muxuu ahaa saaxibun jamcu taksiira laga dhigo asxaabin a lagu jamciyey taqyiira la geliyey mufradkii waa la bedelay shujcaan shujaacun uu ahaa shujaacun hal geesi shujcaanun geesiyaal fara badan waxa laga bedelay mufradkii adaa laga rabaa ilaa horaa laguu soo baray qaabka loo jamcu taksiiriye 6 qaab ah wax looga bedelaa haye wuxuu ku yidhi marka hadda maxalushaadka la rabaa waa maxay rijaalin oo hoos dhigan oo jamcu taksiir munsarifa ah oo kasro lagu khafdiyey maxay caamil hoos dhigaa galay oo ba'daas weeye kiraaminna waxay ka sifaysantoo laga sifaynaa rijaalin isim alla isimkii laga sifeeyey isim hoos dhiganna isna waa la hoos dhigaa haye can asxaabin saaxiibadoo lanaa noo sugnaaday saaxiibadaasoo shujcaanin geesiyaal ah waxa weeye maxalushaadka hadda laga rabaa waa maxay asxaabin waa hoos dhiganta maxaa hoos dhigay caamila ka horeeya cantaasa caamil wax hoos dhiga ah waa xaraf wax hoos dhiga wey haye taasna waa inaad garatood la socotaa shujcaanina waa hoos dhiganta maxaa dhacay asxaabintaa laga sifeeyey isim alla isimkii laga sifeeyo isim hoos dhiganna asna waa la hoos dhigaa ila geesnimadaan yay sifa u tahay shujcaan haye wuxuu ku yihi fa kullun mid kasta oo min rijaalin iyo wa asxaabin ah maqfuudun waa la hoos dhigay labadaba maxaa loo hoos dhigay lidukhuuli xarfi lkhafdi xaraf wax hoos dhiga gelidda uu galay darteed xaraf wax hoos dhigaa galayoo waxa weye rijaalinna ba-aa gashay asxaabinna canaa gashay so uma jeedid waaye caleyhi korkiisuu galay xarafku wa calaamatu khafdihi rijaalin asxaabin inuu hoos dhigan yahay calaamada lagu garanaa alkasratu waa hoos dhiga adaahiratu ka muuqata wa kullun mid kastoo min kiraamin wa shujcaanin labadaas mid kastoo ka mid a maqfuudun asna waa la hoos dhigay liannahu mid kastoo ka mid a nactun sifo weeye lilmaqfuudi mid la hoos dhigayuu sifo u yahay wax alla wixii laga sifeeyo mid hoos dhigana waa la hoos dhigaa wa calaamatu khafdihi mid kasta hoos dhigii calaamada lagu garanaana alkasratu kasrada wey adaahiratu muuqata ayda noqoshee wuxuu ku yidhi wa rijaalun iyo wa asxaabun iyo wa kiraamun iyo wa shujcaanun afartaas jumuucu taksiirin waa jamcu taksiiriyaal wa hiya jamcu taksiiriyaalkaasna munsarifatun waa mid sarfoomayda maxaa u daliila inay sarfoomaydo liluxuuqi tanwiini tanwiinta haleelidiisa lahaa iyada uu haleelay halkaasna waxaan uga gudubnay meeshii labaad oo kasradu ay calaamada u noqon jirta isimku inuu hoos dhigan yahy haye meeshii saddexaad walmawdicu thalith meesha saddexaad
oo kasradu calaamada ugu noqoto khafdada waa maxay walmawdicu thalith meesha saddexaad jamcu lmu'anathi saalim waa jamcu mu'anath saalim waqad carafta waad soo garatay mima baabkii sabaqa hormaray macnaa jamci lmu'anath saalim jamcu mu'anath saalim maxaa la yidhaah waad soo garatay war muxuu ahaa jamcu mu'anath saalim maa dalla calaa akthara min ithnatayni biziyaadati alifin wa taa'in fii aakhirih soo ma ahayn waa inaad garataa jamcu mu'anath saalim waxa la yidhaha hore soo garatay wadalika naxwu nadartu waan fiiriyey ilaa fatayaatin gabdho dhalinyaraa mu'adabaatin oo la edbiyey haddaysan maxramka ahayn ma fiiri kartid ogow gabdha islaam ajnabiya ma aadan fiirin waa kaa xaaran adoo wiila inaad gabadh islaam ajnabiya fiirido ee waxa weeyaan ama ajnabiyaysan ka ahayn ama iyagoo xijaabada halkaas marayood kor ka arag taasaa loola jeeda ee gabadh islaamiyad oo ajnabiya ishaad ku taagta lama ogolo nadartu waa fiiriyey ilaa fatayaatin maxalshaadku waa maxay fataatun gabar mufrada aheed fataatun haye alif iyo ta ku dar fatayaatin haye jamcu saalim soo maahan mu'adabatun gabar la edbiyey waxaad ku dartaa alif iyo ta mu'adabatin haye way hoos dhigan yihiin caamil wax hoos dhiga ka hor mari marka ilaa ka hoos mari waa xaraf hoos dhigee nadartu waxaan fiiriyey ilaa fatayaatin gabdha dhalinyaraa mu'adabatin gabdhahaasoo mu'adabatin edbiyey mu'adabatin waxaa laga sifayna fatayaat wuxuu ku yidhi iyo wanaxw radiitu raalliyaan noqday can muslimaatin gabdha muslimaada raalliyaan ka noqday gabdhahaasoo qaanitaatin ilaahooda adeecaya gabdha muslimaad ah ilaahooda adeecaya raalliyaan ka noqday fiiri radiitu raalliyaan ka noqday can muslimaatin gabdha muslimaad ah gabdhahaasoo qaanitaatin ilaahooda adeecaya maxalushaadku waa maxay muslimaatin muslimatun ay aheed oo mufrada alif iyo ta gadaal looga daray ziyaadaan muslimaatin jamcu saalim noqotay qaanitatun gabar ilahay adeecayda hal mufrada aheed alif iyo ta ku dar qaanitaatin taa'ibaatin caabidaatin saa'ixaatin thayibaatin kulli waa jamcu saalim soo maha haye radiitu raaliyan ka noqday can muslimaatin muslimaatin waa hoos dhiganta oo ayaa hoos dhigay aw caamilkii hoos dhigay canta waa canta soo xuruuftii wax khafdi jirtay kamid a haye qaanitaatina waa hoos dhiganta maxaa loo hoos dhigay muslimaantitaa laga sifeeyey isim hoos dhigan wixii laga sifeeyana waa lahoos dhigaa wuxuu ku yidhi fa kullun mid kasta oo min fatayaatin iyo wa muslimaatin ah maqfuudun waa la hoos dhigay maxaa loo hoos dhigay lidukhuuli xarfi lkhafdi xaraf wax hoos dhiga gelidda uu galay caleyh korkiisa inuu hoos dhigan yahay maxaa calaamadaha lagu garanaa wa calaamatu khafdii hoos dhigiisa calaamada lagu garanaa alkasratu daahiratu waa hoos dhiga muuqata wa kullun mid kastoo min mu'adabaatin iyo wa qaanitaatin ah maqfuudun waa la hoos dhigay liannahu kulligaasu taabicun wuxuu raacay waa mu'adabaat iyo qaanitaat lilmaqfuudi isim la hoos dhigu raacay wa calaamatu khafdihi hoos dhigiisa calaamada lagu garanaana alkasratu daahiratu waa hoos dhiga ka muuqata ayda noqoshee wa kullun mid kasta oo min fatayaatin wa muslimaatin wa mu'adabaatin wa qaanitaatin afartuba jamcu mu'anathi saalim wey kulligood waa jamcu saalim as'ila maa hiya maxay tahay almawaadicu meelaha allatii meelaha tadullu lkasratu kasradu ay tusto fiiha meelahaas dhexdooda calaa khafdi ismi isimka in la hoos dhigay bal meelaha ay ku tusayda kasradu isimka in la hoos dhigay soo sheeg saddexdii meelooda lagaa rabaa maa macnaa kowni lismi isimka ahaanshadiisa macnaheedu maxay tahay mufradan uu yahay munsarifan oo sarfooma waa mufrad xaa loola jeedaa waa munsarif si xaa loola jeeda haye maa macnaa kownihi isimka ahaanshadiisa macnaheedu maxay tahay jamca tagsiirin uu yahay jamcu tagsiirkao munsarifan sarfooma marka jamcu tagsiir xaa loola jeedaa horaa lagugu soo qeexay inaad sheegtaa la rabaa munsarif xaa loola jeedaa waa laguu soo sheegay inaad qeexdaa lagaa rabaa haye ood soo xifdido mathil u mithaali lilismi isimkii almufradi la kali yeelay almunsarifi ee sarfoomayey almajruuri ee lahoos dhigay biarbacati amhila afar mithaal u sheeg mathil waxaad u mithaalidaa lilismi isimkii almufradi lahoos dhigay isimkii almunsarifi sarfoomayey isimkii almajruuri lahoos dhigay mathil u mithaali lilismi isimkii almufradi la kali yeelay isimkii almunsarifa sarfoomayey oo tanwiinta aqbalayey isimkii almajruuri lahoos dhigay biarbacati amhila afar mithaal u mithaali wakadalika sidaasoo kaleeto mathil u mithaali lijamci tagsiri jamcu tagsiirkii almunsarifi sarfoomayey jamcu tagsiirkii almajruuri lahoos dhigay asna afar mithaal u mithaali mathil waxaad kaloo u mithaalidaa lijamci lmu'anathi saalim jamcu mu'anath saalim jamci almajruuri lahoos dhigay bimithaaleyni laba mithaal u mithaali
niyaabatulyaa-i ya-dii naa'ib noqoshadeeda can ilkasrati kasrada ay ka naa'ib noqoto. calaamaatulkhafda saddexay ahaayeen. calaamadii koobaadoo asalka aheed waa ka soo baxan, kasray aheed 3 meelooday calaamad ugu noqon jirta. saddexdaas waxay ahaayeen isim mufradaho munsarifa maxaa lagu qafdi jiray kasro, jamcu taksiir munsarifa maxaa lagu qafdi jiray kasro, jamculmu'anathi saalim maxaa lagu qafdi jiray kasro. saddexdaas meelood ay kasradu calaamad ugu aheyd qafdada. ya-diyaan hadda gelaynaa marka fiiri, niyaabatulyaa-i ya-dii naa'ib noqoshadeeda can ilkasrati kasraday ka naa'ib noqoto. qaala wuxuu yihi maxamed ibnu daawuud asinhaaji raximahullah, wa ama alyaa ya-di fatakunu ya-di calaamatan calaamay noqotaa, lilkhafdi hoos dhigay calaamo u noqotaa, fii 3 mawaadica 3 meeloodayna calaamad ugu noqotaa. 3 meelood inay hoos dhigan yihiin waxaa lagu gartaa ya-da bis. 3 isim inay hoos dhigan yihiin ya-daa lagu gartaa, wax kale laguma garto. fi asmaai asmaadii calaama u noqota asmaadi 5 shanteed. asmaa 5 inay hoos dhigan tahay maxaa lagu gartaa? ya inaad ku aragto. asmaa 5 haddaad ya ku aragto maxaad leedahay? waa hoos dhiganta, saasaad leedahay. kaye wa fi taniyati iyo taniyada haddaad taniye ya ku aragto maxaad leedahay? waa hoos dhigan tahay, waa tana ya ku jirta. iyo waljamci, jamca maxaa loola jeedaa? jamculmudakari saalimaa loola jeedaa. jamcu saalim ya haddaad ku aragto maxaad leedahay? waa hoos dhigay. marka ya-du 3 meelood ay khafdada calaamad ugu noqotaa. maxay tahay? asmaa 5 muhane jamcu saalim. haye asmaa 5 maxaa lagu khafdiyaa? ya. jamc muhane maxaa lagu khafdiyaa? ya. jamcu saalim maxaa lagu khafdiyaa? ya. intaas kaliya soo xifdiba. waxaa lagaa rabaa inaad asmaa 5 maxaa lagu khafdiyaa? ya. muhane maxaa lagu khafdiyaa? ya. jamcu saalim maxaa lagu khafdiyaa? ya. intaas inaad soo sheegtaa lagaa rabaa. waxaa lagu leeyahay asmaa 5 inay hoos dhigan tahay calaamada lagu gartaa maxay tahay? waxaad leedahay ya. muhanaha calaamada lagu gartaa inuu hoos dhigan yahay maxay tahay? ya. jamculmudakari saalim inuu hoos dhigan yahay maxaa lagu gartaa? ya. de meeshaas su-aal muhiima ku jirta, laakiin casharka soo socda insha allah ayaan uga jawaabi doonaa. wallahu subxaanahu wa tacala aclam. sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed.